Bismillahirrahmanirrahim. Kulanti waan saaxiibayaal kusoo dhawaada Soomaali Kartoon. Waa anigoo ah walaashin Ilhaan Noor. Waxaan maanta idinla wadaagi doonaa qiso dhab ah oo ku cimri qaadasho mudan oo qarniyo ka hor dhacday, balse intaaynu guda galin qisada waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe saarto, gambaleelka furato si aad ula socoto wax walba aan soo dhigno. Mahadsanid. Fircoon waxa uu dhalay gabar, waxa uu u soo kireeyay gabadh shaqaale u shanlaysa gabadhiisa timaheeda. Gabadhii shaqaalaha ahayd ayaa maalin maalmaha ka mid ah iyadoo gabadhii Fircoon u shanlaynaysa waxaa dhulka uga dhacay shandadii. Waxay tiri bismillaah. Gabadhii Fircoon ayaa dhahday, aabba sow kama wadid. Shaqaalihii ayaa dhahday, maya ee waa Allah, aabbaha aniga iyo adiga oo ah Ilaahayna wada abuuray dhammaanteen. Gabadhii Fircoon ayaa tiri, oo ma waxaan leeyahay ilaah aan aabbahayga ahayn? Gabadhii shaqaalaha ahayd ayaa tiri, haa, oo dhammaanteen waxaan leenahay hal ilaah. Gabadhii Fircoon ayaa tiri, waxaan u sheegayaa aabbahay. Wayna u sheegtay. Fircoon ayaa u yeeray shaqaalihii, waxa uuna yiri, waa kuma rabbigaaga? Waxay tiri gabadhii shaqaalaha ahayd, aniga iyo adigaba rabbigeenu waa Allah. Fircoon waxa uu amray in saliid la kululeeyo, kadibna la keeno 3 caruur iyo kan ay naaska nuujinayso. Waxa uu ka bilaabay kan ugu weyn caruurta oo uu ku dhex riday saliidii kululayd. Fircoon ayaa weydiiyay gabadhii shaqaalaha ahayd, waa kuma rabbigaaga? Waxay ugu jawaabtay, aniga iyo adiga rabbigeenu waa Allah. Waxa uu faray in lagu rido saliidda ilmaheedii labaad ilaa hilibkiisa iyo lafihiisa isku milmaan oo dhammaadaan. Misna waxaa la keenay cunugii 3aad ee ilmaheeda. Fircoon ayaa yiri gabadhii, waa kuma rabbigaaga? Waxay dhahday, aniga iyo adiga rabbigeenu waa Allah. Waxa uu faray in cunugii 3aad lagu rido saliidda. Waxaa la keenay kii ugu yaraa ilmaheeda oo ay aad iyo aad u jeclayd. Shaydaan Fircoon ayaa yiri, waa kuma ilaahayga aad cabdo? Waa ay aamustay, waxa ayna dareentay jilaac iyo nugayl iyada oo aad ugu naxariisanayso wiilka yar oo ay naaska nuujinayso, oo aad iyo aad ay u jeceshahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wuxuu ka hadashiiyay wiilkii yaraa. hase ahaatee ma jirin wax maqli kara hadalka cunuga yar oo aan ka ahayn hooyadiis. Waxa uu dhahay, hooyo ha baqin oo ha ka cabsan ee ku dheh, ani iyo adiga rabbigeenu waa Allah, adiga ayaa xaqa ku taagani. Waxaa hadashay hooyadii cunuga oo ahayd shaqaalaha gabadha Fircoon, waxayna dhahday, ani iyo adiga rabbigeenu waa Allah. waxaa lagu riday saliidii kululeyd wiilkii yaraa ee naaska la nuujinayay. Markii uu dhammaaday wiilkii ayaa waxaa la soo qabtay hooyadii, waxaana iyadana lagu riday saliidii kululeyd. Dhammaantoodna waa ay geeriyoodeen. waxaa la qaaday lafahoodii waxaana lagu tuuray waadiga. markii nabiga suuban naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaa la dheelmiyay oo uu la socday Jibriil, waxa ay kor mareen waadigaas. waxa uu dareemay rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee dabeel caraf iyo udgoon badan. maxay tahay dabeeshan? maxaa ka caraf badan? malakul Jibriil ayaa ugu jawaabay, rasuulka Rabbi Allow, tan waa caraf ka soo baxaysa shaqaalihii Fircoon gabadhiisa timaha u shanlayn jirtay iyo caruurteedii.